daawadayaasheena meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal cusub markii uu ruux daraadaadu dhimirku u beelo waa mid aanan sahlanayn inaad farxad ku noolaato inta ka dhiman noloshaada markii aan soo xasuusto wixii aan sameeyay ma aha mid wanaagsan run ahaantii ciqaabtii aan marsiiyay ayaan hadda marayaa xilli waxaan marayaa in habeenkii magaciisa aan ku dhawaaqo runtii waxaan soo qaadanay farxad aad u balaaran laakiin balanku ma ahayn inaan xiriir jecel wadaagno kadib ayaa ogaaday in jecelku yahay mid jira isla markaana ahayn mid kula tashanay ruuxa jeclaanaysiida waxaan kuu soo durjumi doonaa qiso jecel xanuun leh saameyntuna ay lahayd adirishada lagu magacaabo Maduri Digshet ayadoo tiri intii loo waday hospitaalka dhimirka ayuu ku hadlayay hadallo ah anigu ma xanuunsanay waxaan ahay qof caafimaad qaba laakiin waxay ahaay waa jecel oo kaliya hadallada ayuu ku celcelinayay hal mar xitaa naxariis yar way gal weeday laakiin hadda ayaan ka shalaanayaa wixii aan horay u sameeyay wuxuu lahaa riyooyin iyo hami laakiin intuba waxay noqdeen mid uu dhimirka ku beelay jecelka dartii haddaba waxaan kuu soo gudbin doonaa wax walba ku aadan qisadaasi khiyaanadii Maduri Digshet qalbi jabkii Lucas wax walba ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa intaan bilaabin muuqaalka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto sidoo kale la wadaagto asxaabtaada fikirkaaga qaybta hoose faalada nagu soo gudbi waxay noo tahay dhiirigelin aad u weyn waxaan ku dhashay magaalada Mumbai ee cariga gudaha dalka India taariikhdu markay ahayd 15 May 1967 waxaan hadda jiraa 53 sano muddo ku dhawaad hadda laga joogo 34 sano ayaan waxaan isbarnay wiil aan isku golaaj ahayn oo lagu magacaabi jiray Lucas waxaan ahayn laba ku firfircoon galaaska mar walba farxad qaata mararka qaar waxaan golaajka liigu geeni jiray gaari inkastoo Lucas uu ka soo jeedo qoys sabool ah aanan awoodin in gaari ay ku keenan wiilkooda laakiin aniga marnaba ma dareensiin jirin inaan iskala weynahay waxaan dhihi jiray marmarka qaar uu murugoodo horumar walba waxa gaari kartaa markii aad noqoto shakhsi anfaca nafsadiisa marka asigoo dhoola cadeynayo ayuu iga tagay jiray run ahaantii Lucas wuxuu ahaa mid mar walba waxbarashada ku dadaala sidoo kale wuxuu ahaa mid kaftan badan jecel dadka kale in mar walba uu la kaftamo runtii waxaan noqonay saaxiibo si aad iskugu dhow mar walba ka sheekaysta mustaqbalka ku aadan waxyaabaha aan jecelnahay inaan noqono isaga wuxuu jeclaa inuu ka mid noqdo softwareada dunida run ahaantii Lucas riyadii uu lahaa aniga ayaa ka dambeeyay inay burburto